laga soo bilaabo 2000 oo sano ka hor magaca magaaladu si ayuu kolba caan ku noqonayay qoraalada badmareennada juqraafiyiinta iyo taariikhyahanada agtooda, kuwaas oo kolba magaca ay markaa caan ku tahay u qorayay. agtayda waxa yaalla qoraaladii Ajathar, warbixintii Biblioska iyo buuggii juqraafiga ee uu qoray Kaladios Betelemo. saddexdan qoraal oo lagu tiriyo kuwii ugu horreeyay ee Berbera lagu xuso muddo laga joogo 2100 sano ka hor hadda. sidoo kale waxay ag yaalla qoraaladii Hamadani oo ahaa juqraafiyahan reer Yaman ah noolaana qarnigii 10aad ee miilaadiga, iyo qoraaladii caalimkii Bakari ee afka Carbeed iyo juqraafiga ku xeesha dheeraa. sidoo kale qoraaladii Ibn Saciid al-Maghribi iyo badmareennadii qarnigii 16aad caan baxay Ibn Majid iyo Sulaymaan al-Mahri. aynu eegna haddaba berberi magacyadii ay caanka ku ahayd waayadaas iyo qoraaladii lagu sheegay. aynu ugu horraysiina Ajathar oo ahaa taariikhyahan iyo juqraafiyahan Giriig ah oo noolaa bartamihii qarnigii 2aad ee miilaadiga ka hor. wuxuu ka soo jeeday magaalada Kindus. tixraacyadii qadiimka ahaa inamaysiin wax xog ah oo faahfaahin ka bixinaya taariikhdiisa, dhalashadiisa iyo socdaaladiisa intaba. hase ahaatee magaciisu wuxuu ku caanbaxay buuggiisa la yidhaahdo Tawaafka Badda Cas oo uu qoray intii u dhaxaysay 145 iyo 132 miilaadiga ka hor. buuggan waxaa si faahfaahsan loogu sheegayaa Troglodyta oo looga jeedo dadkii godadka ku noolaa waayadana loo yaqaanay Soomaalida. sidoo kale wuxuu ku xusayaa marsooyin dhowr ah oo xeebta ku yaala. marsooyinka waxaa ka mid ah marsada Berbera oo uu ku tilmaamayo marsada leh liidka dheer ee qaansada u eg ee marsadeeda dabaylaha ka haya. qoraalka labaad waa kii uu qoray badmareenkii Giriigga ahaa ee lama yaqaanka ahaa. qoraalku wuxuu ku taariikhaysan yahay qarnigii 1aad ee miilaadiga. magaalada Berbera wuxuu ku sheegayaa magaca Malawo. qoraalka saddexaad waa kii uu qoray Kaladios Betelemo oo ahaa caalim Giriig ah kana soo jeeday magaalada Iskandariya. wuxuu ku caan ahaa caalimkani falaga, xisaabaadka iyo juqraafiga. wuxuu qoray buugaag badan oo cilmi falaga iyo xisaabaadka ka hadlaya. hase ahaatee wuxuu magaciisu caan ku noqday buuggiisa juqraafiga, ama siduu ku caanbaxay buuggani oo ah tusiyaha juqraafiga. haddaba Kaladios wuxuu ku magacaabayaa magaalada Berbera Malawo. markii uu islaamku dhashay 2 qarni kadib waxaa soo baxay juqraafiyiin iyo taariikhyahano aad u fara badan oo wax ka qoray mandaqada Badda Cas iyo gacanka Berbera. taariikhyahanada waxaa ka mid ahaa Hamadani wuxuu ku sheegay magaalada Berbera in ay tahay jasiirad. waxaanu odhanayaa jasiiradda Berbera waa goob u dhaxaysa Cadan iyo bilaadu Zinj. sidoo kale waxaa yimi Bakari qarnigii 11aad, isna wuxuu odhanayaa jasiiradda Berbera waxa ay ka mid tahay bilaadu Xabash. qarnigii 16aad markii ay soo gaadheen Burtuqiisku gacanka Berbera, waxaa jira qoraal tilmaamaya in koox Burtuqiis ah ay biyo u doonteen jasiiradda Berbera si aanay gaadhin magaalada Berbera. qarnigii 16aad badmareennadii caanka ahaa oo uu ka mid yahay Ibn Majid iyo Sulaymaan al-Mahri waxay ku sheegeen magaalada Berbera in loo yaqaano Khoor Siciid. qoraaladooda waxaa ka mid ah in ay qorayaan Khoor Siciid kadibna ay odhanayaan waxaan u jeedaa magaalada Berbera. xasan saalix shihaab oo ahaa qoraa juqraafiyahan taariikhyahan ah oo reer Yaman ahaa wuxuu odhanayaa Khoor Siciid waxa u yaqaanay oo keliya badmareennadii dambe, yacni badmareennadii qarnigii 15aad 16aad keliya.